halkan waxaan kusoo gudbinayaa dhacdo ka dhacday gobolka saaxib gaar ahaan degmada Berbera 22 bishii labaad inay gurigood hortiisa xabad askar saraakiil ka soo dareertay garoonka kubadda ay toos subareero ugu dhufteen laba xabadood inanka yaraa baarleys buu noqday xaaladiisana gobolka waxba lagama qaban karo waddanka gudihiisa waa la dayacay ninka erkiisa inanka yaraa markii la soo ogaaday wax uu qabo degmada xukuumaddii maamulkii degmadu dayacaad badheena ayay ku sameeyeen oo mas-uuliyadiisii waxba la iskama tirin ba inanka yaraa waa baarleys mana dhiman mana noolaa waa naqaan anagu halka aanu maraynay waxaanu sameynaynaa haddii sharciga siduu yahay uu dhaqan waayo waxa weeye maamulka gobolka barasaabka ugu horeeya alcasr taliyaha qaybta maayarka degmada ogeysiis mas-uuliyadda intaa leeg ilmaha yar sabiga ah ee laga dhag adagay wandhay baa waxa soo boqday intuu dhakhtarka yaalay baarleys weeye habeenkiina nolosha naftaan ka warnaa maalintiina waa dadku weeriyay ismaan xashaa wandhayna soo dulstaagay wandhay barasaabkuna xilligaa waxa la wuxuu noo qabtay go-aan nooguma gaadhin arrinkiina wuxuu yidhi waxa qaba booliska hadduu qabo muxuu firbaa ku bixin waayay halkaa markay marayso waan garanaynaa anigu labadiinana ina kaga xabad ku dhuftay sharcigana gacanteena ku qaadana maaha laakiin way ka fiirsan waayeysaa haddii arrinka si lagu bedeli waayo